حين أنا وحليدها أنس عبد الرحمن فارح ما داوام هاي هو يردبنا وحان ربا إذا عدينا كهلا قبل بيدي وتنشر أو أيضا أي هاي بالقب صدي من دكسو ودقي بالقب صدي معلنا قبل شدي وقب صدي وكف صدي بيقول لي مطي صاص hooyo Anise Cabdiraxmaan Faarax ayaa sheegtay in gabadheeda oo 10 jir ah uu kufsaday macalinkeeda dugsi quraanka u dhigayay kufsigaas uu u geystay darteedna ay gabadhii yareed u dhimatay subhanallah أنا وحليدها أنس عبد الرحمن فارح ما داوام هاي هو يردبنا وحان ربا إذا عدينا كهلا قبل بيدي وتنشر أو أيضا أي هاي بالقب صدي من دكسو ودقي بالقب صدي معلنا قبل شدي وقب صدي وكف صدي بيقول لي مطي صاصو يتهاي أيضا عافم أيضا حنوصل أو لقب صدي من استيشن كسيمري أيضا هلا يسو وبيجي بنسيمري إسبيتال كلا عافمات بنسيمري أنت أسبوع هالليسي أفكاري كل هالليسي إسبيتال كذا 5 ساعة أو ظهر نما يجوا قاضي صاصو يتهاي تلاقي بالي كشيء تلاقي تسد بربع يجوا شدي sidoo kale hooyadan oo murugo badan ay ka muuqato ayaa sheegtay iyadoo dhibkaas oo dhan uu ku dhacay haddana ay dhib kale ay kala kulmayso macalinka familkiisa kuwaasoo ugu hanjabaya inay dili doonaan hadday kiiskan faraha kala bixi weyso waxayna kaloo sheegtay in iyadoo xaamilo ah inuu soo weeraray wiil 18 jir ah oo macalinka la dhashay dhagax shiid ahna uu dhabarka kaga dhuftay markaas haddana waxaa dhacday in anigay 4 saac guriga intii la keenay 3 saac oo subaxnimo wiilka gabadh falkaas sameeyay walaalkiis oo 18 jir inuu dhabarka dhagax iga dhuftay saas oo tahayna xaamilaan hay sagaalkaygii waa go'ay dhiig iyo biyo iga furteen saacada aan golo kasto caafimaad aan la xiriiro sidoo kale hooyo Aniso ayaa sheegtay inay ka war heshay in ninkii kufsaday gabadheeda kufsigaas dartiisna ay u dhimatay inuu xabsiga laga sii daayay iyadoo la leeyahay waa la dhaariyay wuxuuna ku dhaartay dambina inuusan gelin sidoo kale waxay intaas ku dartay in familkiisa ay rabaan inay wadanka ka dhoofiyaan si aan mar dambe loo qabanin waxayna fariin u dirtay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo ka codsatay inuu cadaalad hor keeno ninkan gabadheedii dilay si ay cadaalad u hesho maadaama ninkii aan ku ogaa inuu ii xirnaa oo dawladda ay cadeyn ii soo goystay kiisku ninku waa ku cadyahay gabadha haan la aaso wax kiiskayga gabadhu ii cadyahay ma jidho wax ii ogna ma jidho shalay baa waxaa la leeyahay ninkii baa la soo daayay kitaab baa la mariyay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa oo dadka islaamka waxaan ka codsanayaa shareecada islaamka ninka in la igula tiigsado hooyo maadaama dhibanaanahay amnigayga ma sugna meel aan joogo ma jidho saacada gurigii ilmihii wax waa ii baranay meel waa ii aadi laayiin waa soo adeegan la'ahay qof xaamilaa baanahay maalin walba nabar baa laygula soo haliilaya maadaama mu'adin wadanka u dhashaanahay waxaan rabaa madaxweynaha iyo dadka islaamka dal iyo dibad jiro in arrintaa wax la iga tahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo naadsanid